بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. aayadda marka waxaa laga qaadanayaa alwalaa'u walbaraa, gaalada in laga beri noqdo waa aslun min usuuli اdiin, waa asal ka mida usuusha diinka weeye. diinna ma jiri karo ilaa biwalaa'in wa baraa, yacni inaad ka beri noqoto gaalada mushrikiinta iyo inaad xiriiriso oo aad jeclaato dadka muslimiinta ah. aayaddan keliyana ma ahe adilo fara badan ayaa waxay tusinayaan arrinta. laakiin waxaa muhiim ah cidda laga beri noqonaya marka hore waa inay yihiin dad gaala, laakiin dad muslimiin ah inaad inta gaalaysiido kadib aad tidhaahdo beri baan ka noqonayaa, qofkii beri ka noqon waayana asiga waa gaal oo beriyaa laga noqonayaa, waa baatil lagu dhisay waayo, wax ka jira ma laha. maxaa yeelay aayadahan markaad soo daliishanayso waxaa muhiima aayaddan iyay ka hadlaysaa, ma muslimiinay ka hadlaysaa mase gaalay ka hadlaysaa? aayadda gaalay ka hadlaysaa soo maa. qolooyinkan takfiirka oo jamaacatlmuslimiin la baxay oo ayaga keliya isku haysta inay muslimiin yihiin, waxyaabahay isku aruursadeen oo dadka dhan iskaga buuseen waxay isku wacdiyaan aayaddan oo kale: lii camalii walakum camalukum antum bari'uuna mima acmalu wa ana bari'un mima tacmaluun. aayaddu yay ka hadlaysaa. aayaddu waxay ka hadlaysaa dad gaalo ah, adiguna waxaad rabtaa inaad ku dabaqdo dad muslimiina oo islaamnimadoodu ay tahay midaan shaki ku jirin, bal laga yaabo inay kaa wanaagsan yihiin fil islaam, kaaga wanaagsan yihiin ku camalfalka diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda iyo garashadeeda iyo aqoonteeda intaba. markaas diinta uga saareen sidaa. markay dadka muslimiinta gaalaysiiyeen ayay yidhaahdeen haye qofkaana soo raacin asigana xukunkaas u qaadanaya. sababtu waa maxay? waa inaad gaalaysiiso ciddaan annagu gaalaysiinay. man lam yukafir ilkaafir fa huwa kaafir. qofkaan gaalka gaalaysiin waa gaal. marka hore inaad gaalnimada qofkaan sugtaa daliilkaaga baahan, mana sugi karo. waa min ajhali innaas, dadka kuwa ugu jahliga badan la waayo takfiirku. ma sugi karo, laakiin wuxuu rabaa inuu indhacadays dadka ku gaalaysiiyo rabaa, iyo aqoon darro iyo jahli, kadibna lagu raaco gaalaysiinta dadka muslimiinta ah. qofka haddii islaamnimadiisu sugan tahay laa yakhruju min alislaami ilaa biyaqiin, islaamnimada wuxuu uga bixi karaa wax yaqiin oo la hubo waayo, ma aha malo iyo weela tahay. waana arrin aad iyo aad khatar u ah in dadka muslimiinta la gaalaysiiyo, arrin aad iyo aad khatar u ah waay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad walaalkaa ku tiraahda yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa, warkaasi waxaa la noqonaya labadooda mid ka mid ah. yaa kaafir haddaad tidhaahdo meel cidlaad dhici mayso, imaa inaad saad ku sheegto uu noqdo oo gaalnimadu ay ku caddahay, hadduu noqon waayo wa ilaa xaarat calayh, asay ku soo noqonaysaa. fain kaana kamaa qaala wa ilaa xaarat calayh ay rajacat calayh, kufrigii gaalnimada uu qofka muslimkaa ku tuuray asigay kusoo laabanaysaa, asigay kusoo laabanaysaa. aayado marka qur'aan oo loo meel dayin in la iska akhriyo, aayadaha qur'aanka fahmay u baahan yihiin. khawaarijta markay ku kaceen cali bni abi aalib radia allahu canh ay yidhaahdeen macanaa kitaabullah, annaga kitaabka allaan wadanaa bay yidhaha, qur'aankaan haysanaa. markaasuu yidhi qur'aanu hadal buu yidhi, qur'aanu hadal, qur'aanu hadal. qur'aanku maasaa hadlaaya? qur'aanka zayd iyo camara gaala miyuu leeyahay? ma hadlaayo qur'aanka. yaa waayo waxa qur'aanka ku hadlaaya marka? qur'aanka ahlucilmigaa ku hadla, ahlucilmigaa sharaxo o fasira, laakiin qur'aanku keligii iska hadli maayo. marka aayadaha qur'aanka in la iska soo siibto oo qofka dadka inta iska axkaam iska saaro kadibna aayado qur'aana uu daldalo, aayadda waxaa la rabaa horta marka hore inaad fahamsantaha waxa ay ka hadlayso. marka labaad waxaa la rabaa ciddan aad aayadda u daliishanayso ma mutaabaqaynaysaa, aayaddu ma ku dhawoobaysaa mase ku dhawoobi mayso. inaad qof muslim inta diinta ka saarto kadib aad tidhahdo innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna ayaa ilaahay yidhi, marka hore inaad aayadda macnaheeda fahamtaa ka horeysa. marka nimankaasi waxaa looga yimid xagga jahligaa looga yimid. الشheekh cabdاللطيف ibn cabdالرaحmaan
maruu ka hadlaya niman noocaana oo uu ku eedeynayay inaysan jamaacada la tukan waxyaabaha dhibaatada u geysta waxaa ka mida buu leeyahay nimankan waa niman acaajima carabigiina aan fahmin shareecadiina aan si fiican u fahamsanayn buu yidhi masaa-ishay ka hadlayaan ma garanayaan mana yaqaanaan marka dadka waxay ku xukumayaan waa jahli way marka dadka waxay ku xukumayaan waa jahli waxa haddaadan aqoon fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga ahlucilmiga waa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaadan wixii garanaynina ahlu dikriga weydiiya ahlu dikriga waa ahlu cilmiga aayadda tafsiirkeeda culammadu ula noqo waxaa la yaab leh dadka ku dhiiran inay dadka muslimiinta gaalaysiiyaan waxay ka tawarucayaan masaa-isha kaleo diinka o dhan wuxuu ku leeyahy ma aqaan laakiin markii towxiidka la joogo oo mas'alo aada u weyna khatar ah way u sahlantaha koobiya u kaba maayo inuu yidhahdo hebel waa gaal hebel waa kada hebel waa kada markii tahaarada la soo gaaro wuxuu leeyahay culummada ha la weydiiyo oo tan culummo uma baahna miya yaa weyn tahaaro in laga hadlo iyo in laga hadlo aliimaan waalkufr masaa'il alasmaa waalaxkaam qof walba kama hadli karo culummada laftirkooda waa inay yihiin culummo ehel u ah ka hadlaysa maxaa yeele waa masaa'il khatar ah oo aad halis u ah haddii marka tahaaradii markii la joogo aad leedahay culummada ha la weydiiyo oo salaadda haddii wax lagaa weydiiyo aad leedahay culummada ha la weydiiyo macnaheedu waxa waa adiga inaadan aqoon u lahayn adigoo marka diinka aqoon u lahayn see uga hadasha masaa-ishan ka waaweyn masaa'il tahaara waa nasiib darro waaye inaad masaa-isha waaweynna aad ku dhiirato masaa-isha yaryarna aad tirahdo waa ka tawarucaya waa iska ilaalinaya inaan ku dambaabaan ka baqayaa waxay la mid tahay qoladii reer ciraaq ee ibnu cumar radia allahu canhu u yimid ayagoo dhahaya ka warran anigoo muxrima haddaan kaneeco dilo kaneeco ka warran haddaan dilo reer ciraaqna waa qoladii markaas dishay alxusein ibni cali ibni abi aalib oo wiilkii awowga nebiga u ahaa sala allahu alay wasalam ee asaga iyo walaalkii xasan uu yidhi waa sayidaa shabaabi ahli ljanna xuseenay inta dileen ayay dhiig kaneeco weydiinayaan marka wuxuu yidhi ibnu cumar reer ciraaq la yaab bay leeyihiin buu yidhi xuseenna way dileen dhiig kaneecana waa ka tawarucayaan buu yidhi oo dhiiggii kaneecada ay weydiinayaan leeyihiin ka warran haddaan kaneeco dilo maxaa la yeelanayaa yani dhiigga xuseen rag daadiye maxay kaneeco ka weydiinayaan tanna waa sidii oo kale masaa-isha waaweyneyd ee culummada waaweyn xataa ay ka gaabsadaan in badan oo laga yaabo caalimku inuu ka tawaruco khawfan min allah asoo ilaahay ka baqayo subxaana wa tacala masaladu maadaama ay tahay masalo khatara ayaa waxaa ku dhiiranaya dadaan ehel u ahayn waxaan hore u soo marnay kitaabkii ahaa akhlaaq اlculamaa hadaa xasuusataan ajra'u الnaasi calى اlfatwa ajhaluhum saas yidhahdee bacdu salaf dadka kuwa ugu dhiiranaanta badan fatwada oo xukunka iska rida waa dadka kuwa ugu jaahilsan waayo kulamaa qofka cilmi uu leeyahay waxaa badnaanaya khawfuhu min alfatwa fatwada waa ka baqaa salafka in badan oo ka mid a markii su-aal la weydiiye way isku tuurtuuri jireen wallaahi may aniga hay weydiin caalimkaas weydii hebelaa iga aqoon badana masaladan weydii ayagoo ka cararaya in aakhiro loo qabsado khawfan min allah haddana dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah qof aan ehelahan wuxuu leeyahay markii wax la weydiiyaba ana lahaa shafka u garaacanaya suu iska dhex dabaalanaya asoon ehelna u ahayn aqoonteedana lahayn waxaa kugu soo dhacaya xadiidkii nebiga sala allahu alay slam uu yidhi qabla saaca sanawaatun khadaaca yu'tamanu fiiha alkhaa'in wa yukhawanu fiiha alamiin wa yatakalamu fiiha aruwaybida saacadda qiyaamo waxaa ka horeysa sanawaad ehelkoodu dhagar iyo khiyaano badan yihiin waa inta qiyaamuhu dhicin ka hor calaamadaha qiyaamahay ka mid tahay sanawaadkaas dhexdooda qofka khaa'inka ah waa la aaminaa khaa'inka waxaa leeyahay maa sha allah nin fiican waayo kan amiinka ah ee aaminka ahna waa la khiyaana lagu xukumaa waxaa leeyahay waa khaa'in kii wanaagsanaa waa khaa'in baa la leeyahay wayatakalamu fiiha ruwaybida ruwaybidaduna way hadlaysaa buu yihi nabiga alayh salatu wasalaam sanawaadka dhexdooda ruwaybidadu yaa waaye baa lihi rasuulka ilaahay ruwaybida waa maxay markaasuu yihi waa asafiih aladi yatakalamu fii amri اlcaama waa maangaab waa doqon ka hadlaya
arrimaha caamka ah ee dadka muslimiinta ka dhexeeya. nin maangaaba oo aqoon lahayn oo caqli lahayn oo laga yaabo reerkiisa inuusan maamulo karin ayaa wuxuu rabaa muslimiinta dhan inuu ka hadlo shu'uuntooda oo yidhaahdo saanna waa maslaxo saanna maslaxa ma aha. min calaamaati saacay ka mid taha, calaamadaha qiyaamaha ayay ka mid taha. marka aayadaha qur'aanka iyo kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal ly slam waa in loo fahmo sidii salafu saalix u fahmeen, waana in looga dambeeyo axkaamta iyo asmaada ahlulcilmiga. ahlulcilmiga ayaa iska leh fataawaha, ayaga in looga dambeeyo wey. waxay ku fasireenna adiga aad ku fasirto.